kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada warka maanka midiya qodobada aan kugu haynana waxa ugu waaweyn askari ka tirsan ciidanka ilaalada maamulka gobolka Banaadir oo sameeyay fal argagax leh guddigii doorashada uu soo magacaabay madaxweyne xaaf oo soo saaray jadwalka doorashada iyo xalka galmudug oo qasan Puntland oo digniin ka soo saartay duufaano iyo dabaylo iswata oo ku soo wajahan deegaano ka tirsan maamulkaasi al-shabaab oo 4 ruux ku toogtay gobolka Shabeellaha Hoose iyo warbixin ku saabsan dhacdooyin dhowr ah oo dhaawac gaarsiiyay sumcaddii ciidanka booliiska Soomaaliya qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan warka maanka midiya mar kale kulanti wanaagsan daawadayaal waa 13 bisha koowaad ee Janaayo sanadka 2020 fadlan daawade haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe dheh ka bacdina riix gambaleelka si aad u hesho xogahan halkan ku soo gudbino aynu ku bilownaa warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dil maanta uu askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ilmo yar ugu geystay afaafka hore ee xarunta gobolka Banaadir wararka ayaa sheegaya in askariga dilka geystay uu ka mid ahaa ciidanka ilaalada xarunta dawladda hoose ee Xamar oo uu ku shaqeeyo maamulka gobolka Banaadir dilka wiilkan yar oo lagu qiyaasay 10 jir ayaa yimid kadib markii askariga toogtay uu ku eedeeyay inuu ka xaday mobile sida ay warbaahinta u sheegeen dad goobjoogayaal ah sidoo wararka ayaa intaasi ku daraya in markii dambe gacanta lagu dhigay askariga ka dambeeyay dhacdadaasi dhanka kale ma jiro ilaa hadda wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha laamaha amniga oo ku aadan dilka cunugaas yar inta badan ciidamada ammaanka ayaa dilal ka dhan ah shacabka ka geysta Muqdisho iyadoo marar badan dawladdu ay ku celcelisay in ay wax ka qaban doonto falalkaasi guracan wiilkan yar oo da'diisu aad u yareed jirana 12 sano ayaa la sheegayaa in askarigaasi uu dilay inuu sheegay inuu mobile ka xaday hase yeeshee ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegaya in ilmigaasi ninkii dilay ay gacanta ku soo dhigeen masaacada ilaa hadda ciqaabaha uu wajahi doono askarigaasi ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa marar badan dad shacab ah waxay ku dileen gudaha magaalada Muqdisho waxaana inta badan dilalkaasi dhowr mar ka cabtay mootobajaajleyda ka shaqeysa magaaladaasi waxaana ciidamada dawladdu inta badan si qalad ah u dilaan dadka shacabka ah walow laamaha amniga dawladda Soomaaliya marar badan ay sheegeen in arrimahaasi ay wax ka qaban doonaan guddigii doorashada oo dhawaan uu magacaabay madaxweyne xaaf ayaa maanta soo saaray jadwalka doorashada warbixintan waxay noo haya maxamed maxamuud guddigan uu soo magacaabay madaxweyne xaaf isla markaasina ah guddiga doorashada galmudug sida wareegtadii hore madaxweyne xaaf ee ugu soo baxday ayaa guddigan maanta waxa uu soo saaray warqad isla markaasina uu ku muujinayo jadwalka habraaca doorashada ay doonayaan inay qabtaan taariikhdu maalinta ay ku beegan tahay 14 bisha koowaad 2020 oo ah maalinta bari ah ayaa lagu qoray inay tahay xareynta iyo wacyigelinta odayaasha dhaqanka kuwaas oo soo xulay ah ee xildhibaanada baarlamaanka sida lagu sheegay taariikhdu markay ku beegan tahay 18 bisha koowaad 2020 ayaa lagu sheegay inay tahay soo xulista iyo soo gudbinta xildhibaanada baarlamaanka galmudug iyadoona sidoo kale lagu sheegay in 20 xildhibaan laga siinayo ahlu sunna maalinta taariikhdu ay ku beegan tahay 20 ee bisha koowaad ee isla sanadkan waxaa lagu sheegay inay tahay shaacinta iyo dhaarinta ee xubnaha ee baarlamaanka ee galmudug taariikhdu maalinta ay ku beegan tahay 21 ee bisha koowaadna waxaa lagu sheegay inay tahay diiwaangelinta musharaxiinta gudoomiyaha baarlamaanka ee galmudug maalinta xigta ee aan raahday waa 23 bisha koowaadna waxaa lagu sheegay inay tahay khudbad soo jeedinta musharaxiinta gudoonka baarlamaanka ee galmudug 25 bisha koowaadna waxaa lagu sheegay inay tahay diiwaangelinta musharaxiinta madaxweynaha 30 bisha waxaa lagu sheegay inay tahay khudbad soo jeedinta musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha 1 bisha labaad sanadka 2020 waxaa lagu sheegay inay dhacayso doorashada ee madaxweynaha ee galmudug haddaba jadwalkan ayaa waxaa soo saaray guddiga hor uu xaaf u soo magacaabay kaas oo la sheegay inuu yahay guddiga doorashada ee galmudug sidoo kale waxaa xusid mudan in dhuusamareeb ay ka soconayaan diyaargarowga ee doorashada ay gudoomiyaha baarlamaanka ee galmudug haddii xaaladdu sidaan ay kusii socotana waxay u muuqanaysaa
in laba dhismo ay ka kala dhici doonto ama laba maamul laga kala dhisi doono magaalooyinka dhuusamareeb iyo gaalkacyo. Waxaa sidoo kale xusid mudan in saacadihii lasoo dhaafay gaalkacyo ay gaarayeen odayaal iyo siyaasiyiin kuwaas oo sheegay inay ka qaybgalayaan shirweynaha uu isugu yeeray Xaaf, isla markaasina ay qayb ka noqon doonaan dhisida maamulka laga dhisayo ee magaalada gaalkacyo. Si kastaba ilaa hadda dowladdu war kama soo saaran rasmi ah ololaha maamul dhisida ee ka soconay magaalada gaalkacyo. Dhinaca kaleetana musharaxiintii ayaa kusoo qulqulaya magaalada dhuusamareeb, waxaana la filayaa maantay ilaa 2 musharax inay soo gaaraan magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug. Cabdulaahi, wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Puntland ayaa soo saartay digniin cusub oo ku socota dadka degan xeebaha, waxaana lagu wargeliyay in roobab dabeelo wato ay ku soo food leeyihiin xeebaha badweynta Hindiya iyo badda cas ee Puntland. qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ayaa waxaa lagu sheegay in dabeelo xooggan ay ka dhacayaan badaha badweynta Hindiya iyo badda cas, waxaana dabaysha ay ku socotaa xawaare sare oo gaaraya 36 kilomitir saacadii ilaa 40 kilomitir saacadii. sidoo kale wasaaradda ayaa dhammaan kalluumaysatada iyo dadka ka agdhow badda uga digtay inay galaan badda muddo 3 cisho ah oo ay baddu aad u kacsan tahay. dabeelo xooggan ayaa ka dhacaya badaha badweynta Hindiya iyo badda cas. dabeelaha ayaa ku socda xawaare sare oo ah 36 kilomitir saacadii ilaa 40 kilomitir saacadii. dabeelahaasi waxay ka soo kaceen dhinaca waqooyi galbeed iyagoo u sii jeeda dhinaca bariga, waxaanay culimada saadaasha hawadu ay sheegayaan in muddo 3 cisho ah oo ah 12 ilaa 14 Janaayo ee sanadkan 2020 ay ku soo fool yihiin xeebaha Puntland. sidaasi daraaddeed waxaa looga digayaa dhammaan kalluumaysatada iyo dadka ka agdhow badda in aanay gelin badda 3 cisho oo ay baddu kacsan tahay, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Puntland. si kastaba dabayaaqadii sanadkii tagay ee 2019 ayaa waxaa deegaano ka tirsan Puntland ku dhuftay roobab dabaylo watay, kuwaasi oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo mid hantiyadeed. xubno ka tirsan xarakada al-shabaab ayaa fagaaro ku yaala deegaanka Sablaale ee gobolka Shabeellaha Hoose waxa ay ku toogteen 4 ruux oo ay sheegeen inay ka tirsanaayeen dowladda federaalka Soomaaliya. goobta toogashada ayaa waxaa ku sugnaa qaar ka mid ah shacabka deegaanka Sablaale, waxaana dilka toogashada ah lagu fuliyay 4 ruux oo al-shabaab ay sheegeen in ay u shaqeynayeen dowladda Soomaaliya, waxaana 4 ruux ay kala ahaayeen: 1 Ayuub Xasan Buraale oo ay sheegeen inuu ka tirsanaa maamulka degmada Kuntuwaarey uguna magacoona dhirta iyo daaqa; 2 Xasan Cusmaan Cali Abayle oo ay al-shabaab sheegeen inuu ka tirsanaa ciidamada dowladda ee degmada Baraawe ka howlgalana aadna looga yaqaanay degmadaasi; 3 Xasan Faarax Maxamed Gambiye ayay al-shabaab ku sheegeen inuu ka tirsanaa ciidamada dowladda islamarkaana ay qabteen isaga oo ku wajahnaa degmada Buulo Barde ee gobolka Hiiraan; 4 Xuseen Xasan Geelle oo ahaa ninka afaraad ayaa al-shabaab sheegeen inuu ka tirsanaa ciidamada dowladda Soomaaliya islamarkaana laga soo qabtay deegaanka Dacaaraha oo u dhow degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose. si kastaba al-shabaab ayaa horay waxay dil ugu fuliyeen dad ay sheegeen inay la shaqeynayaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha taageera, kuwaasi oo goob fagaaro ah ay shabaab ku toogteen. booliiska waa ciidanka kaliya ee leh awoodda sugidda amni ee dal walba, waana kuwa baara dhacdooyinka adduunyada ka dhaca, balse Soomaaliya waxay maantay maraysaa in qof walba ka baqo ciidamada booliiska Soomaaliya, laga soo bilaabo madaxda qaranka iyo kuwa kaleba. waxaa sii dhimanaya kalsoonida ay ku qabaan booliiska Soomaaliya oo ah kuwa lagu aaminay amniga magaalada Muqdisho. dhowr dhacdo oo xanuun badan iyo kuwa fashilmay ayaa sabab u ah in lagu kalsoonaan waayo booliiska, waxaana dhacdooyinkaasi ka qayb ah dhowr jeer oo dharka booliiska loo adeegsaday weeraro rag booliis ah oo dilal rayid ah loogu geystay, iyo warar sheegaya in bastoolado laga helay hoolkii dabaaldega ee maalinta ciidanka booliiska Soomaaliyeed, taas oo sababtay in madaxweynuhu ka baqo hadda markii ay galaan madaxtooyada iyo hareeraheeda, ama markii ay madaxda ka qayb galayso munaasabadaha. waxaa la baaraa ciidamada booliiska
oo ay ahayd in ay iyagu wax baaraan waana calaamad muujinaysa in hay-adda booliiska Soomaaliyeed uu burbur ku socdo. Booliiska waa hay-adda ama ciidan caalami ah oo leh awoodda koowaad ammaanka iyo baarista, balse Soomaaliya iyaga ayaa la baaraa isla markaana iyaga ayaa laga ilaaliyaa madaxdii qaranka sababtoo ah waxaa ku milmay al-shabaab, ayuu yiri sargaal ka tirsan booliiskii hore ee Soomaaliya. Sababta keentay in fashil ku yimaado booliiska ayaa waxaa lagu sheegay dhowr arrimood. Waxaa lagu soo daray rag badan oo ka soo galay ciidamadii hore ee NISA oo u badnaa kuwa markii hore ka soo goostay shabaab isla markaana aanan marin hubin badan. Dhalinyaro badan oo la qoray dhowrkii sano u dambeeyay kuwaas oo aan soo marin habraacyada qorista ciidamada, waxaana ku soo dhex dhuuntay al-shabaab badan oo gabdho iyo wiilal iskugu jira. Dharka ciidamada oo aan xadidnayn waxaa laga helaa suuqyada magaalada Muqdisho, iyadoo ay fududahay in qof kasta uu xirto iyagoo wata darajo walba. Madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagula taliyay inay soo saaraan 10,000 oo askar oo booliis ah oo lagu aamini karo ammaanka magaalada Muqdisho, lana siiyo lacag iyo daryeel fiican si meesha looga saaro daryeel xumada iyo laaluushka. Haddii ay dowladda Soomaaliya qaadato talooyinkan ayaa la aaminsan yahay in al-shabaab laga saari doono magaalada Muqdisho, balse hadda uu halis sii gelayo ammaanka dalka oo dhan, gaar ahaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Guud ahaan waxaa intaasi ku eg warkii Maanka Media, tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabaday.